السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحب السوداء وملبو دفاع دوني ذا جوكتان channel كداوني سوا عبد النو معي وعبد النو حسين سوداء صاحب يال شلي وحن مقال كسر سميني سيدا لو سميستو يوتيوب channel عصب قفك مركو يوتيوب channel عصب سميستا أو شروطي جارو أو سدح ديكون إلا إيو شنتي بقول أو جارو أو وحول باي أفضل هذا وحاجة سو كسر دماغ كدب وحقوبها هني مركو حلي رادو جوجل أدسنس Google AdSense waa meesha YouTube-ka lacagta kugu soo diri lahaa marka aad shardiga gaarto marka aad shardiga gaarto wax walba ay ku dhameystirmaan hoos waxa kugu soo qormi doonta set up oo ah apply garay ina waxaas apply garayso apply to set up ba ku soo qormaysa marka set up ku dhufatina waxa lagu dirayaa Google AdSense waxa lagu weydiinayaa marka inaad leedahay existing Google AdSense oo ah Google AdSense hore u sameysnaa ama waxa lagu weydiinayaa inaad sameysanayso mid cusub marka waxa laga yaabaa inaadan hore u lahayn laakiin aad rabto inaad sameysato sida daraadeed ayaan u sameynayaa maanta muuqaalkan sida aad u aragto qaabka loo sameysan karo Google AdSense adigoo waliba mobile isticmaalay sababtan mobile muuqaalkan ugu sameeyaan wax kala maan dhalinyarta inta badan mobile ay haystaan qaarkood baan laptop haysanin waxay jeclaan lahaayeen inay arkaan marka qaabka loo sameyn karo Google AdSense qofkii oo mobile isticmaalay sadarada ay muuqaalkan u sameynaya marka soo dhawaad saaxiibayaal insha Allah sida caadiga ahayd fadlan muuqaalka like garay adiga aan ku sugiyaa muuqaalka hadii aad like garayso meel fara badan inaan gaarno ayuu iga saacideeyaa marka muuqaalka like garay kadibna muuqaalka marka la garayso fadlan channelka hadaad ku cusub tahay subscribe noo sar meeshan si maalinle ah ayaan muuqaal ugu soo gudbiyaa waxaynu ku jirnaa sida caadiga ahayd 30 days challenge oo ah maalin kasta inaan muuqaal soo gudbiyo marka muuqaalkana la soco saaxiibayaal waxaan tagayaa Google Chrome ka ayaan tagayaa ama Google saa u taqaanidba mobilka marka isticmaalayso inaad Google isticmaasho waa qasab hadaad iPhone isticmaalayso iyo hadaad isticmaalayso Android ba xaga marka waxaan ku qorayaa saaxiib AdSense markaan qoro toos ayuu soo baxaya AdSense markaan qoro marka toos wuxuu ii keenay marka Gmail-adeeda aan AdSense ku isticmaalo oo wuxuu leeyahay hadaan tusaale marka waxa jiro Gmail-aan aniga caadi u galo oo ku isticmaalo maadaama marka kuwaas mar rabana inaan tuso waxa rabaa marka inaan tuso Gmail cusub oo dartiin u sameeyay si aan muuqaalkan aan idin kugu sameeyo sida darteed waxaan ku dhufanayaa marka isla Gmail-kii aan sameeyay waxaan leeyahay click markaan ku sii maadaama mid cusub sameysanayo marka wuxuu ii keenayaa marka website-ka magaciisa aan website-ka meeshaanayta dadka qaar hadaad YouTube channel haysto way geliyaan oo your site marka loo YouTube channel kaaga lagu wada laakiin markaad AdSense cusub u sameynayso marka hore xagan lama geliyo sadaraadeed I don't have any site baan ku dhufanayaa kadibna website-ka saa u jeedid calaamad wala qaada markaan intaan I don't have ku dhufanin waxba lagu qori karaa laakiin I don't have markaan ku dhufto waxba lagu qori karo okay xagan wuxuu ku leeyahay marka get more out of AdSense Yes, send me customized help and a performance suggestion. No, I don't want to customize the help and a performance suggestion. Marka haddaad yes ta ku dhufato markasta iyaga waxay ku soo dirayaan customized qaabka wax loo bedbedelo iyo waxyaabahaas iyo suggestion ay ku soo dirayaan laakiin waxaan ku dhufanayaa marka I don't want aan ku dhufanayaa dadka badanaa meesha isku qaltaan marka waa kana saaxiibayaal your payment counter and the threshold Soomaaliya qof jooga halkan wuxuu gelinayaa Soomaaliya no waa qalad Soomaaliya meeshan ma gelin karto haba yaraatee Soomaaliya iyo Ethiopia wadamada lacagta laga sameeyo ma gelin karto halkan waa meesha la gelinayo qofka aad rabtid addresska iyo xogtiisana isticmaasho YouTube-ka lacagta sida caadiga ah wuxuu inoo soo diraa dhalinyaro aan walaalanahay oo qurbaha joogto saadaradeed ama asxaabnahay ama ehelna ama familnahay saadaradeed qofka aad isleedahay YouTube-ka lacagtiisa way kugu soo dhici wadanka uu joogo ayaad halkan gelinaysaa halkan Soomaaliya Ethiopia Africa waxaan ma gelin kartaa hadaad geliso AdSense wax lacag ah haba yaraatee oo sameynaya male waana meeshan isleeyahay dhalinyarada inta badan waa qaldan because meesha waxa ku qoran baa ujeedaa your payment country baa ku qoran wadanka lacagta lagu siinaya ku qoran Soomaaliya lacag lagu ma siiyo Ethiopia lacag lagu ma siiyo Kenya way dhici kartaa laakiin Kenya wadamada hadda ma aragtay aan sida shaxsanaha u soo bixi aan u ahayn bay kamid tahay waxaan isleeyahay Africa marka la dhaho South Africa iyo Nigeria iyo Masar saddexdaas wadan baa si toos ah hadda lacag loogu soo diraa waa isleeyahay saadaradeed meeshan waxa gelinaysa marka wadanka qofka aad saaxiibada tihiin ama ehelka tihiin ama macnaha xogtiisa isticmaali doonto uu joogo aniga marka tusaale ahaan waaye wadan baa iska isticmaali kartaa laakiin aniga halkan waxaan gelinayaa oo aan rabaa inaan geliyo oo muuqaalka maadaama aan sameynayo Germany ayaan gelinayaa halkaas okay Germany markaan geliyo marka hoos hadaa u soo baxay wuxuu ku dhahayaa marka terms and condition ma ogoshahay xeerarka anaga aan isticmaalin yes and I have read dhamaan xeerarka waa xeerarka lagu sheegay waa kuwan mobile marka isticmaalayso scrolling baa ku sameyn kartaa waa akhrin kartaa maadaama aan Germany ka dhigay af German bay igu soo qoriyeen marka yes I have read baan ku dhufanayaa kadib waxaan ku dhufanayaa start using markaan ku dhufto marka automatically AdSense-gayga wuu direct gareynaya oo AdSense cusub ayaan sameystay sidan waxaad ku haysataa AdSense cusub okay markaas halkan imaado
saa meesha ujeedid waxa ku qoran tell about yourself oo ah required waxa la waa qasab xogta inaad buuxiso meesha waxa ujeedid required baa ku qoran information ka inaad buuxiso waa qasab sidoo kale adskan waa xayisiinta qaabka macnaha page-kaada ugu soo dhici waa optional muhiim maahan waxa kale oo required ah in macnaha AdSense-ga iyo YouTube-kaaga iyo isku xirto saadaradeed hadaan enter information ku qoro enter information meesha ku qoran tahay enter information ayaan ku dhufanaya enter information markaan ku qoro halkan marka waa meesha aad ku buuxin lahayd wax information-ka ugu muhiimsan meesha aad ku buuxin lahayd waa kan marka wuxuu ku leeyahay account type-kaaga nooca account-ga isticmaalayso waa sidee individual ba mise organization hadaad shakhsi tahay ama YouTube-ka shakhsi ku leedahay individual ba isticmaal sida ugu badanna halkan individual ba lagu isticmaalaa saadaradeed individual ku guda organization hadhiin okay magacaaga oo dhameystiran ayuu halkan ku weydiinayaa magaciga ayaa ku jira saa ujeedid kadibna halkan addresskii xogtan waxaa xusid mudan dadka dhalinyarada waa iska gelgeliyaan xogtan iskama gelgelin kartid xogtan waa xogta uu kuu soo dirayo qofka walaalka ah ee dibadda jooga isaga wuu garanaya markaad page-kan screenshot ugu qaadid oo u dirtid wuu garanaya xogtan waxa ay tahay because address uu isticmaala postal code uu isticmaala magaalo uu jooga number uu haysta waxaan magaciisa waaba adigaaba garanaya xogtan isaga uu garanaya marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa xogtan inta aysan buuxinin qofka wadanka joogo ay isla yihiin lacagta wadankiisa ha kuugu soo dhacdo ama bankigiisa ha kuugu soo dhacdo maadaama banki magaciisa iyo la iska rabo hadhow wadanku jooga qasab tahay waxaan leeyahay dhalinyarada intaan screenshot ka qaadeno kadibna ha u diraan markay u diraan kadib ninka dhalinyarada uu fahmayaa magaciisa iyo addresskiisa iyo postal code-kiisa iyo caasimada uu joogo iyo ilaa wadanka waa soo sameystay iyo numberka marka waa optional isaga muhiim ah xogta marka qaabkan ay u buuxinaysaa waa magacaaga waa addresska waliba address line 1ka bas qasab line 2 xitaa qasab maan postal code waa qasab waa meesha postada kugu soo dhaceysay waxa kale oo qasab magaalada qofka joogay iyo numberkiisana waa optional okay inta marka la geliyo marka waxa leedahay submit aniga marka hadda waxba ma gelinayo adinku maan tusaale idin ku tusaya kadib marka waan ka laabanaya hadaan ka laabto marka geeskan saa u jeedid intaan calaamadaha saddexda ah hadaan ku dhufto calaamadahaas saddexda geeska hadaan ku dhufto dhinacaan ayaa ii soo baxaya dhinacan marka hoos waxa ku qoran account meel ku qoranta ayaa jirto account hadaan ku dhufto marka access account setting ka balfiiri kadibna waxa ku jira account information oo ah isla meesha hadda ayuu ku keenaya personal setting hadaan dhahana marka waa meesha adiga si shakhsi ah u isticmaali lahayd oo ma aragtay detailkaaga iyo xogahaaga iyo waxyaabahan iyo gmailkii waxaan ka akhrin lahayd xaggaas dadkaas ka tusin xagga dana halkii ku laabo kadib waxa ku dhufataa marka account information markaan dhahana the same rule saacada iyo ID-ga iyo waxyaabahan uu Kenya waa ka laabanaya marka inta ugu badan marka YouTube-kii shardiga uu gaaro YouTube-ku shardiga sameeyo kadib marka adigana already si samaystay Google AdSense marka apply dhahdo Gmail-ka aad Google-ka ku samaystay iyo Gmail-ka aad YouTube ku samaystay maadaama ay isku mid yihiin AdSense ku samaysatay iyo YouTube-ka maadaama ay isku mid yihiin wuxuu ku dhahayaa ma existent baa rabtaa mise mid cusub baa rabtaa haddaan si samaysatay oo aad siileeda sida haddaan anigu sameeyay aad mid u haysato waxaa leedahay marka existing kaliya marka adiga markaas waxba kaaga baahan existing marka dhahdo yes baa dhihi AdSense uu fahmaya horuu ka qabsanaya marka hore markuu qabsado hadhow marka postal code buu u dirayaa qofkii verification number buu u dirayaan rabaa verification number ka ayaa soo qabanaysaa kadibna marka account verification meesha ku qoran tahay oo under payment-iga ah meeshan verification check ay ku qoran tahay ad payment maahan waa meeshaan verification check ku qoran tahay halkan ayuu marka verified kugu soo qoraya marka ashuruda gaartid halkan ayaad binka gelinaysa marka insha Allah mar kale oo YouTube-kayga labaad ee aan sameeyay oo xogta gaaro mise verification-ka uu gaarina muuqaal caadi ah sida loo sameeyo waa ka soo sameyn doona hadduu Ilaahay maydin marka waan rajaynayaa muuqaalkan inuu wax badan aad ka fahantay wax badan ka taray aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.